waxaan u maleynayaa maanta qof aan gabar ahayn halkan la dhageysan maayo. حتى مرودي كواد مدن يال وكيل لو ذي ماشي. مركا هراء وحنلا يا هاي دمان مدحض الصوماليات وهالكن السقوط تمت وكم هالسنتين طبعا قابضة يهب ماموسكا هوشان آت كلوسو أبابلي لكن جارهان وحنلا يا هاي gabdhaha iyo hooyooyinka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan oo ay ugu horeyso marwada madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxaan idin leeyahay waan idinku hambaleynayaa maalintan farxadda leh ee 8 Maarso waad mudantiin in la idin hambaleeyo sababtoo ah Soomaali baad u hambaleeyeyseen laga soo bilaabo markii la bilaabay gobonimo doonka waa idin hambaleeynaa sababtoo ah ma noolaan karno idinka la'aantiin laga soo bilaabo 1947 ilaa hadda halgan walba oo dalkan ka dhashay raggu markay cabsadaan haweenka dhiiri gali jiray welina meeshii baa taagantiin waa ku mahadsantiin markii raggu dhaqaalahooda la bakhiilaana idinka bixiyo daabkiina iibiya markay dagaalka ka baqaana idinka gelin jiray markay colaadda ku nagaadaana idinka ka qaban jiray markii la isi imaan waayena idinka dadka iyo dalka isu keeni jiray madaxdii iyo dadkii aan hormuudkooda sharaftooda qirinaa horumarkooda ayaa wax ka halaysan yihiin sidaas daraadeed anigoo matalaya ragga Soomaaliyeed ayaan waxaan idinkugu imid inaan idin hambaliyeeyo idinkana mahad celiyo sidaad ummadda Soomaaliyeed u garab taagnaydeen halkan waxaan ka qiraynaa maanta iyo mar walba in haweenka Soomaaliyeed ay mar hooyooyinkeen yihiin waxaan halkan ka qiraynaa inay yihiin barbaarisadii soo barbaarisay waxaan halkan ka qiraynaa inay yihiin dhaqaale abuurto ay dhaqaalaha noo abuuraan waxaan halkan ka qiraynaa inay iyagu yihiin kuwa colaadda damiye marka dabka colaaddu kaco waxaan halkan ka qiraynaa inay yihiin kuwa kaliya oo qaraabeeya laba qoys labadaas qoys oo 20 noqota 20 kaas oo 200 noqota labadaas oo 200 noqota labadaas kun oo qaranka noqota waxaan aaminsanahay markaad halkan ka maqasheen gabdhihii halkan ka hadlayay inaysan hooyooyin kale oo kaliya ahayn ay hogaamiyeyaal yihiin ayna tahay in la siiyo doorkooda waxaan aaminsanahay naxariista dadka Soomaaliyeed ee dalku uu leeyahay inay ku fadhiyaan qalbiyada haweenka Soomaaliyeed qarniga 21aad oo adduunyada lagu tartamo aqoon iyo xirfad gaar ahaan dadka ayaan rabaa maanta inaan uga faa'iideysto hal fariin oo ah fariinta soo socota fariintaas iyada ah waxay tahay ragga Soomaaliyeed inaan fahamno haddii aan rabno inaan adduunyada la tartamo adduunyadana waxa lagu tartamo ay dad yihiin dadka tiradiisa iyo tayadiisuna ay muhiim tahay haddii dawladaha dariska iyo dawladaha horumaray ay nagula tartamayaan wiil iyo gabal walba oo iyagu wax bareen annaguna aan rabno kaliya inaan ku tartanno boqolkiiba 50 bulshadeena ah sidee baan dunida isaga celinaynaa macnaheedu waxay tahay lama rabo
inaan nidhaahdo gabdhahan xuquuq siinaynaa keliya lama noolaan karo lanama tartami karo adduunyada haddii aan la siin gabdhaha Soomaaliyeed xuquuq keliya ma ahan xuquuqdooda oo dhammaystiran oo ah inta ay dalka ku leeyihiin kulligeen hooyooyin baan leenahay waalid baan leenahay walaalaan leenahay gabdhaha waa ogtihiin waxbarashada dunida maanta wiilashii gabdhaha ku horeeya shaqadina iyaga ku wanaagsan waxa inta ka sii daran ammaanadina iyaga ku wanaagsan sidaas daraadeed waxaan soo jeedinayaa maadaama aad guusha dhaliseen aad soo dadaasheen dalal badan oo dunida ka midana aad ka horeysaan sida aad xuquuqdiina ugu dagaalamaysaan waa inaadan joojina halganka dagaalka aad ugu jirtaan inaad xuquuqdiina heshaan aniga iyo madaxweynuhuna waa idin garab taaganahay 100%. inta aan wali fahmin waxaan rabaa marka inaan ku soo ganaado haweenka Soomaaliyeed waa hilinka horumarkeena waa halbowlaha nolosheena haweenka Soomaaliyeed waa horseedka hirarka rajadeena idinkana waxaan idin leeyahay ha joojina halganka ha joojina hiigsiga ha joojina horumarka hambaliyo